Asalaamu calaykum kusoo dhawow Himilo High School maanta waxaan baran doonaa sida kombiyuutarka loogu shubo Windows 10 iyo waliba Office aniga hadda flaashkan ayaa waxa igu duuban Windows-gan uu i diyaarsan yahay qof walba oo naga midana waxaan filayaa sida Windows loo soo degsado way taqaanaa Google Chrome gale kadibna halkaas kala soo degay Windows u baahan tahay marka aniga kombiyuutarkan Toshiba ayaa maanta waxaan rabaa inaan Windows ku shubo Office-na sidoo kale ku shubo flashka marka hadda waxa ugu jiro aniga Windows ayaa flashka ugu jiro oo horey marka kombiyuutarka ayaan soo qabanaa waxaan gelinaa kombiyuutarka flash kombiyuutarka markii aan flash geliyo ugu horeyn waxaa taabanaa power button kadibna F12 ayaan boobsiinaa oo hadda kombiyuutarka flash waa gelisay marka aan sameeyo hawsha aan hore u galo power button ayaa check-siina click marka sidii inta uu kombiyuutarku soo kaca gacantada fududee haddana F12 boobsi F12 tag waa garaacaysa ilaa iyo ay ku soo baxdo sidaan F12 tagsiina marka ay sidaan ku soo baxdo anaga hadda waxaan noqosay mid ku hooseeyo USB memory marka si aad u tagtid qaybta arrowga keyboardka ayaa laga socdaa ilaa moogta kor iyo hoos inay aad marka u baahan tahay qaybtan arrowga keyboardka afartan falaarood la yiraahdo arrow qayb falaartu hooseedo hoos u jida ayaan hoos wada kadibna waxaa tagaa USB memory markaas waxaa leeyahay keyboardka ayaa waxaan taabanaa enter ayaa click siina oo keyboardka click ka siina okay hadda marka enter si waxa u jeedaa kombiyuutarka sidaan uu sameeyo wax yar screen-ka uu damay haddana uu soo kaco screen-ku markuu sidaan u soo kaco waxa bilaabanaya hawshi okay sida markuu screen-ku soo kaco waxa uu jeedaa Windows 10 wuxuu soo qabtay sidoo kale waxa uu jeedaa language baalkii oo soo qabtay language luqadii marka hawshan oo dhan adiga adeertay aad wax yar 15 ka xiro wax 15 ku daro adiga aad hawshan oo dhan marka anaga adeertay waxa uu jeedaa USB waxa noo dooran tahay Windows noo dooran wax soo noo dooran kadibna adiga waxa iska leedahay nagasti waxba waxnada isku dhibin adiga waxa adiga wax gaar ka bedelay maahan okay nagasta ayaa iska dhaca marka aan adeerta oo waxaan hadda hawl gaar ah ka bedela ama wax ka qabana ma marka okay nagasta waxaan filayaa nagasta waa ila wada aragtiin markaas nagasti aan u siiyo waxa uu soo gudbinaa option-kan okay waxa yaraan wada sugma nagasta uu ku maqan yahay hadda waxa u jeedaa marka wuxuu leeyahay install now halkaas ay ku qoranta install now ayaan click siina oo falaarta check ku siina install now check marka sidii wuxuu bilaabaa inuu soo install gareeyo kombiyuutarka marka halkan wuxuu ku leeyahay waxaad soo doortaa Windows-ga aad kombiyuutarka ku sugaysid soo dooro sida markuu soo baxsho aniga hadda waxaan dooranaa midkan u hooseeyo kan ka koreeyo oo Windows 10 Pro-ga ku shubaa ku shubtaa asagaan soo doornaa markaas falaarta arrowga hoose ee data ku soo tusay ayaa ka soconaysa Windows 10 Pro ku shubaa marka kadib enter ayaa leeyahay keyboardka ayaa enter ka dhaha okay enter marka ay raado marka wax yar oo processing gala oo shaqeeyo gala markaas hadaad enter ade ama nagasta ade laakiinse meeshan ay accept ku qoranta waxa saaray check halkaas aad farta ku tusaa check saare marka check saartay kadibna waxa iska dhigana nagasti ama enter iyo nagasti waa isla mid okay hada marka nagasti iska dhaw hadda waxa u jeedaa asaga waxa u dooran agreed laakiin aniga agreed mar waxa rabaa custom install Windows araba hoos u maana custom install Windows marka waxyaabaha Windows ku jiro waa kuwana sida drive-kii network waxa soo dhan markaas kadibna file-ka aad rabtid ayaa iska tirtiraysaa file-shan iska tirtiraysaa file-ka tii kadibna waxa dhahay dil ama dileysa u taqaanid kadibna waxa dhahay okay hadda waxa u jeedaa file-kaasi oo baxay file-kaas waxa ku jiro sidoo kale waa kartaa hadda waxa u jeedaa file-kan waxa ku jiro 4644 kan waxa ku jira 465 okay file markaas kaaga dhameeyay kadib nagasta ayaa leedahay la file culays ku keenayo dhan waa iska bixday kadibna nagasta ayaa leedahay okay
next markay tiraadid halkan ay ku qoran tahay copy windows oo windows copy garaya intuu copyistaan oo dhameystira adiga 100% intuu ka geynaa suge faylashan kale sidoo kale oo check saara marka waqti yar iska qaadane inta marka soo install garaya hoos wada faylashan dhan oo check saara sugaad waxa u jeedaa 100% ayo marka computerka uu fududii asaga boobsiina laakiin intuu mees faylashan hoos oo dhan oo check ka wada saara aad sugaysaado marka shaaxa iska sii taaf shaaxa soo qaado si aad waqti ugu sii sugtid marka aniga hadeertaan inuu waxa rajeynaa oo boobsiyo hadeertaan waxa u jeedaa wuxuu maraa 97% ayuu maraa okay installation hoose inuu marka check ay saara rabaa installation hoose oo ii update gareeyo oo sidoo kale maartay finish up idaho kadibna oo windowski oo start gareeyo rabaa marka sidaas marka sameeyo waxa sameeynaa waa sugaaday waxa iska sugaa iska dul qaado okay waxa sugno marka leenkaas hoose intuu ka buuxinaa suuga leenkaas hoose intuu ka buuxinaa leen marka step way hadda laba step soo marna stepka saddexaad aanu si dhiman intuu marka ka buuxinaa sugaysa marka okay hadda waxa u dhiman kaliya inuu finish up dhaho inta kale wuxuu soo dhameeyay finish up inuu dhaho kaliya u dhiman bisata hoose leenka waxa u jeedaa inuu buuxsan rabo okay hadda waxa u jeedaa Windows needs to restart in hadda la yiraahdo Windows computerki waa la restart gareeyay ama hawshiisu way bilaabatay okay kadib waxa sameeynaa wax yar screen-ka wax yartiga marka flash-ka waa iska bixinay computerka restart-na waa dheh flash-kana waa iska bixinay okay looma ogolo computerka intuu soo kaco markuu dhow soo kaco inay flash ama data kale ku jirto looma ogolo sida USB waxaas oo dhan marka adiga waxaas oo dhan banaanka iska geeyay marka computerka asaga soo kaca oo Windows-ka ku shubtay ayuu restart gareyna kadibna asaga soo kaca waxa u jeedaa inuu soo daarmay kadibna waxaan ayaa soo baxaa kadib asaga processing ka hor asaga ismarsiina xogta horeeta asaga akhrisana markuu akhriyo kadibna asaga u shubana just a moment oo jeedaa hawshu isku dhamaatay laakiin waxa noo dhiman inaan iska sii saxsaxno programmada bis iska sii saxno okay waxay raasugno marka computerada qaar waxa laga yaabaa markaad ku shubay Windows-ka inay waqti qaataan dhowr saacadood ay qaataan laakiin computerba intuu computer ka RAM weyn yahay waaye oo ka fudud yahay marka waaye bayrasu marka waxa asaga wada adiga hadda ku qusay maahan welcome ku soo dhawaad ku leeyahay Windows-kaagi waa lagu shubay computerka kadibna asaga oo sii wada laakiin anaga waxa inta ka sii dambeeyay waxa hawl programming noo dhiman wax noo dhiman waa iska nagasta iyo skip iyo wax saas ah okay sugno marka wax yar inta anaga waqtigan laga gaaro ama anaga shaqada wadana sugno ilaa hadeerta asaga shaqadii waday okay waqtiga salaadana waa la joogaa okay just a moment hadeerta marka anaga hore marka uu shaqada idro saatana uu soo hawshan soo qabtay wuxuu leeyahay waxa doorataa state ka dooro leeyahay United States ay dooran kadibna adiga next iska siiday United States doorane kadibna next ayaa iska dhaynaa أو جدا فرح فلسفة أو جدا كتا هالكاس يكون قرنتها يس هالكان يس يكون قرنتها يس يا نجست وإسلامت واحد فرق يوم الدعاية مركا اللي بدو سكسي واي مركا واحد هنا يس نجست يس انتر سد عدو سكسي واي مركا يس اسكنا هنا أوكي وحيرو ريجا هذا سيدان أيو ليه هاي وحو ليه هاي واحد دورتها لوقدا دورو ليه أنا قاعد واحد دورنا نقص أسكر أنا قصة لو كنت أنا يسحن تاي حبيبي ما قلدنا يوست سعيد ورات أوكي كي بوتكم من نقصة أنا أرتاح مثلا نقصة كله نقصة أنا رواي سكيبس كده هذا هوا كوسي دارانين أوكي حوا وحي كاميرا حما كرالي نقطة أو ما أرتاح إلا فيديو والتليفون على القدوة كده محول إنترنت إنك كحتى مويا وهذا وبعان تاي مثلا ما يعني سكيب فونا ولا واحد إنترنت هذا كحري مايو سكيب فونا ومركز سكير هذا كده ساعتنا ويسوس سارة داتا تلفون بيكحري نوع عليه هذا داتا تلفون كحري ما أول هو إنترنت كوير كم يكحري وير ما يراد هذا داتا تلفون بيكحري وير ما يراد مركز حولي هاي مجا وبه يعني أنا وحاصل له حاوب هنا بي سي أسكال قرآن نايم ماشى كليكسي كده من حقوق قرطة بي سي
BC markaa ku qortid waxaad tiraahdaa next ama enter tii kuu fudud adiga. Okay, haddana hadda wuxuu leeyahay waxaad u samaydaa password u samey. waxaa leeyahay 1 2 3 4 next. wuxuu leeyahay passwordkii xaqiiji. haddana waxaa leeyahay 1 2 3 4 next. wuxuu leeyahay si hadhow passwordkaaga u soo xasuustid waxaa samaydaa su'aalahan uu ku weydiiyaa what is your name uu ku leeyahay marka hore baalkii magaca. waxaa leeyahay aniga magacayga waxaa waaye BC aa leeyahay oo la computer mugtahay BC aa u soo baxshay. wuxuu leeyahay su'aasha la weydiina waxaa waaye xagee baad ku dhalatay. waxaa leeyahay Muqdisho, aniga Muqdisho iskaga qoray. wuxuu leeyahay su'aal saddexaad cunugaaga naanaystiisa. naanays macnaha hadhow cunuga naanaystiisa ku soo xasuustid. anigu cunugaaga wiilkayga wow aa leeyahay wa askaga soo qaadan W soo taqaan wow askaga soo qaadan W askaga qoray. kadibna waxaa leeyahay next. adiga daarto hawl su'aalahan oo dhan next iska dhigtaa, laakiin su'aalahan uu ku weydiina inaad hadhowti soo xasuustid passwordkaaga ayay kuu fududeynaysaa. okay, next ama enter iska dheh. marka sidan ayuu ku leeyahay. markuu sidan ku dhaho waxaa adiga leedahay accept. qowsha in la accept gareeyo la process gareeyo muxuu qanacsaday accept enter yes tii ugu sahlan accept hadda meesha noo qoran accept adeena wuxuu leenahay kadibna xogtaan uu soo saaray yes aska dheena ma waxa waa no tan no waa yes man. okay, saad markuu yiraahdo marka waxaa leedahay accept adeesa adiga waxba sharaxaad dheer si geli aad medid insha Allah. hadda marka waxaan rajaynaynaa in ay hawsha noo fududaato oo hawshan aan hore u sii galno ilaa Windows u badan hawsha accept iyo waxa dhaan waa soo wada marnay. hadda marka waxaan sugaynaa computerka hawsha markuu dhameeyo oo isdamina kadibna uu soo kacna hi alir soo dhawow. waxaa la yiri get everything ready, wax kasta waa diyaar hadeertaan. okay, aan way sugnaa marka wuxuu leeyahay wuxuu ku amraa sidoo kale computerka hadii ay data ku jirto in aad ka bixidid ayuu ku amraa, balse aniga wixii data computerka hore ugu jiray waa ka soo bixiyay oo computerka marka Windows ku shubay waa ka soo bixiyay. marka waqti yar uu qaadana adiga inta waqtiga qaadana waxa yar iska sug. wuxuu ku leeyahay this mistake several minutes. computerka qaar waqti badan qaataan dhowr saacadood qaataan laga yaabaa, laakiin waxaan rajaynayaa inuu waqti badan oo qaadan adiga 3 daqiiqo iyo wax la mid inuu qaato. okay, marka aan wada sugno marka wuxuu ku leeyahay wax kasta oo computer ku jira ka saar. aniga hore ayaa ugu soo saaray enough everything ugu leeyahay almost 3 dhammaantood waa true. hadda waxaa ujeedaa marka computerka uu soo kacay. hadda marka computerka waxaa ku shubtay Windowska ayaan ku shubtay. marka hadda waxaan ujeedaa applicationada ama apps-ka banaanka ii saaran inay yihiin kuwo large aad u waaweyn. marka iyaga siskooda saxa right click ayaan leeyahay. right click marka iraado kadibna waxaa dooranaa display setting. right click ayaan dhahaa waxaad ujeedaa apps-da inay kuwo waaweyn. right click kadibna display setting ayaa dooranaa. okay, si fiican waa ila socotay sidaan fahmayo sidaan filayo. waxaa kaamirad xumaana ka raacday dhoqda kaamirada telefoonka ku duubaa ilaa computer screen record waxba laguma duubi karo. marka settingkii markii uu saan kugu soo kaco waxaad dooranaysaa halkan hoose ay ku qoran tahay relations. kadibna halkaas waxaa ka saxaysaa size-ka soo jeedi kartaa Soomaa in farta kugu samaan xoogay screen-ka waxa laga yaabaa kaamirad xuma inay jirto. kadibna waxaad ka dooranaysaa qaybta u koreydo oo ah 1280 lagu dhuftay 700. kadibna waxaa leeyahay keep adeerta marka waxaan sameeyay waxaan soo saxday size-kii ay lahaayeen absida adeerta absida ku macquul ay noqdeen. laakiin hadda waxa u jeedaa meeshan waxaa ka maqan wax badan ayaa ka maqan. waxa u jeedaa wax badan ka maqan yihiin. right click ayaa dhehaysaa kadibna waxaa soo saxaynaa auto colorka window ayaa iska soo saxaynaa. qarkaas ay ku qoran tahay colors ayaa ku dhufanaysaa kadibna colorka rabta ayaa dooranaysaa. anaga adeerta colorka waxa ay saar wax laakiin waxa rabaa in adeerta colorka oo window computerka windowgiisa ayaan rabaa inaan saarto. okay, kadibna waxaa leedahay minimize. hadda waxaa ujeedaa meeshan waxaa ka maqan waxyaaba badan PC-gi faylashi waxyaaba badan hadda meesha ka maqan ujeedaa 2 option bis ay saaran control panel hoos dhan way maqantaa. markaas sidaa kuwaas u soo bandhigtay waxaa leedahay right click okay, right click aa leedahay halkaas times ay ku qoran tahay times ayaad ka dooranaysaa. kadibna halkaas ay ku qoran tahay desktop icon ayaad ku dhufanaysaa. desktop icon marka ku dhufatay hadda qalinka hoos ugu dhigo wax yar si madow noqoto. desktop icon-ka aad click siinaysaa kadibna waa kuwana iconadii check aad soo saaraysaa. waxaa ujeedaa computer user files network
control baana waxaas oo dhan kadib markaa check abtaa soo saartid okay ayaan dhehnaa okay marka waxaan rabnaa in hadda markaa banaanka ku aragno ama screenka computerka ku aragno abisyadii oo dhammaystiran. Hadda waxaa ujeedaa abisyadii oo dhan waxay soo galaan halkan. Waxaa ujeedaa HPC-gii, network-gii, control panel-kii, recycle bin-kii wixii dhan hadda waa ujeedaa. Marka hadda yartaan waxa naga maqan marka waxay tahay office waxa la yiraahdaa naga maqan. PowerPoint waxaas oo dhan way naga maqan. Right click dhaho inta hadda ay joogto aan arko. Okay, right click and new marka iraado inta ay joogto hadda yartaan arag. Hadda waxaa ay joogo text and document iyo waxyaabo saad ii joogo PowerPoint iyo Word Excel iyo waxaas oo dhan way maqan yihiin. Microsoft oo dhan way maqan yahay. Microsoft markaas ugu shubaa dartaan Microsoft wuxuu ugu jiraa flashka computerka ayaan flashka soo gelinaa kadibna waxaa tagaa PC. Okay, this PC markaa tago hadda waxaa ujeedaa computerka wuxuu soo qabtay flashkii wax yar aan soo dhaweeyo. computerka wuxuu soo qabtay flashka waa ujeedaa waxyar raali noqdaa soo dhaweyno. computerka flashka soo qabto Microsoft ayaa gelaya. Anaga waxa ugu jiro 2015 iyo 2013. markaan waxaa ku sugan Microsoft 2013 ama 2013 Microsoft ayaan rabaa in aan ku shubto. marka waxaa sameynaa marka waxaa soo ogaanaysaa computerka inta bit oo computerkaaga uu yahay si awaatid waxaa tagay PC-ga right click ayaa properties ayaa ka dooranaysa kadibna halkan Windows-kan ku keenaa. halkan ayaa waxaa markaa ka raadinaynaa computerkeena inta bit uu yahay. hadda waxaa ujeedaa aniga computerkaygu waa 64 bit ama 64 bit. sababtoo ah baalki setup-ka oo Microsoft-ka 32 bit iyo 64 bit waa. marka wuxuu ku leeyahay bitka computerkaaga aad ku suba kartaa computerkaaga bitkiisu waa imisa. marka okay hadda waxaan tagaa marka absa fura kadibna Microsoft fura setup-ka fura marka insha Allah. setup-ka marka aan furo waxaan leeyahay hadda setup-ka marka fursaana way ugu soo kaca kadibna waxaa leeyahay yes ma rabtaa inaad computerka ku shubto Microsoft yes askale yes. okay waxay aan sugno wuxuu leeyahay office waxaana check up adiga saar continuous ka siida marka. okay install now marka check marka saartay install now hadda marka computerkii waxaan rabnaa in office-da ay wax dhamay noo shaqeeyaan insha Allah. laakiin shuruudahan ayaan maraynaa ilaa wax kasta step ay leeyihiin sida Windows ugu soo shubto kale. laakiin software-kan oo office-da waa Windows ka saaleen marka uu ka dhameynaa suge. hadda anigu waxaa ujeedaa inuu dhameeyay laakiin wuxuu ku leeyahay waqti yar ayaan qaadanaynaa. macnaha software-ka inaan shaqeysino waqti yar qaadanaynaa. okay waa sugeynaa marka hoos waxaa ujeedaa few minutes ana waqti yar qaadanay. okay wax yar aan wada sugno marka hawsha marka qabanay waxa u baahan tahay inaad shaaxaga agtaystid sababtoo ah wax yar inta sugayba maskaxda waa inaad sii dejiyo adigana maskaxdaada si uu adiga Windows-gaagu oo soo dhaco waa inaad adiga maskaxdaada sii dejidid. okay arkaan wada sugno hadda waa kana marka aniga hawshan marka wuxuu leeyahay internet inaad baalka ku soo update gareedin oo baahan ma aniga waxaas oo dhan u baahan aniga close iska dhaca marka ama cancel ta u taqaanidba close marka iska tiraadid. okay hadda qaybta Windows-ka ama searching-ka aan tago inaan bal arko warqadihii iga maqnaayay in kale. okay halkan waxa uu jeedaa inuu ku soo qabtay Office, PowerPoint, Word, Excel waxaas oo dhan inuu ku soo qabtay. hadda markaan waxa fureynaa warqadda Word 2013 ay fureynaa. okay inta warqad soo kacay marka ay wada sugn ilaa wax kasta wax dhan waa wada new inta soo kacaya waqti ayay qaadanaysaa. markaas su'aasha uu ku weydiinin aad qaybta click si kadibna agree ama accept iska dheh. marka warqad kasta marka soo kacay su'aal warqadan cusub inaad shaqaysid ma ku weydiin doono. hadda waxaa ujeedaa welcome your new office ku soo dhawow warqadaada cusub ee office-ka in la yiraahday. okay marka aniga okay leeyahay hadda marka warqada ay shaqeeyay ayaan rabaa internet ku hortay martaa may skip iska leeyahay skip waxaas ku dhameynaa oo warqada danayna internet ku soo update garay mar waxa raa iyada bila internet shaqada wuxuu jeedaa warqadii way ay shaqeeyday. hawsha marka isku dhamaatay computerka waxa ku shubatay Windows-ka waa ku shubatay sidoo kale Office-kina waa ku shubatay kadibna waxaad iska tiraadaa refresh adartan marka waxa ujeedaa new marka doortay warqadihii oo dhameystiran ay hadda soo baxaan u jeedi kartaa Soomaa.
okay marka intaas ayuu maanta cashirkan noogu egyahay waxaan filaa waad fahantay computerka sida loogu shubo Windowska iyo sida Microsoft-ka loogu shubo ama Office-ka loogu shubo warqadaha computerka sida loogu shubo okay maanta marka cashirkeenu halkaas ayuu inoo joogaa barnaamijyada hadda ku subno computerka Office-da dhamaa kuwana cashirkan marka maanta intaas noogu egyahay Himil High School inta aad ku guda jirtay waxyaabo badan ayaa soo bartay hadda waxa ku soo dhamaaday cashirta hardware-ka sidoo kale waxa ku dhex jirta cashirta software-ka sida Windows loo soo dejiyo waa taqaan sida computer loogu shubo waa taqaanaa sida Office-ka loo update gareeyo waa taqaanaa ama maartay warqada computerka iyadana loogu shubto marka cashirteena kale insha Allah waan sii wada doonaa marka hadda computerka waa iska diminaa kadibna waa isku laabaa mahadsanidin